Ma ogtahay in burcadbadeed xeebaha Soomaaliya ay ku afduubteen 3 markab hal toddobaad gudahood kadib sanado badan oo aan halkaas waxba lagu afduuban. Mid ka mid ah waxa uu ahaa markab xamuul ah oo siday sibidh laguna magacaabo Sword kaas oo ka soo baxay Masar kuna sii jeeday Kenya 26 Abriil 2026 markii uu markabku u jiray qiyaastii 6 mayl xeebta Garacad ee Soomaaliya. Burcad hubaysan ayaa si lama filaan ah ula wareegtay kuna khasabtay inuu jiheysto biyaha Soomaaliya iyadoo ay saarnaayeen 15 ilaa 17 shaqaale ahi. Dhowr maalmood ka hor 22 Abriil 2026 markab shidaal qaado oo lagu magacaabo Honor 25 ayaa sidoo kale laga afduubtay xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya isagoo ka soo baxay Berbera kuna sii jeeday Muqdisho. Waxaa saarnaa 17 shaqaale ah oo la sheegay inay ku jireen dad u dhashay Pakistan, Indonesia iyo Hindiya. Dhacdada saddexaad waxay ahayd burcadbadeedu waxay sidoo kale afduubteen markab kale 25 Abriil 2026 qiyaastii 10 mayl badeed meel u jirta deegaanka Dhinood ee Soomaaliya balse faahfaahinta safarkiisa iyo shaqaalihiisa si rasmi ah looma xaqiijin. Shabakadaha burcadbadeed ee xeebaha Soomaaliya ku afduubta maraakiibtu waxay muddo dheer u ahaa ganacsi khatar badan oo faa'iido badan ay ka sameeyaan. Waxay qabsan jireen maraakiibta kadibna waxay hayn jireen shaqaalaha kadibna waxay sugi jireen malaayiin dollar oo madax furasho ah. Si kastaba ha ahaatee dhinaca rajada weyn laga qaba ayaa ah in burcadbadeedu badanaa ay sii deyso shaqaalaha kadib wada hadallo madax furasho ah maadaama taariikh ahaan loo ogaa inay ujeedkoodu inta badan uu ahaa lacag ee uusan ahayn dilwadareed. Ma rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqaysto income iyo dhaqaale aad ka samaysid online-ka? Haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing, affiliate marketing, cryptocurrency iyo digital products sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kuugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqaysto. Kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas halkaas ayaana kugu soo diri doonaa. Igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.